السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالق أهواني سلامي دمان ميل كستو أدونك كجوكتان ما شاء الله كيغان قروح دبضان مانتيا لوغو تلقلي ويان كيغان قروح دبضان ما شاء الله أصحابتي دقالق أهوحان لوغو تلقلي قبر ولا شيدا أو مقعيدا أو يهي زهركين يتفكنا إيكو سوغشا مسكحدا الدونيدا وقبر ما شاء الله شرف يعزي يوحكستا إيغان مضان waxaanay leeyahay keega waxaa lagu magac daray keega zahrakiin insha Allah hadaa rabtiin ina ogaatiin sidaan u sameeyay asxaabtayda qaaliga ah videogan dhamayso ilaa idhamaan waxaan sameysanaynaa velvet cake ayaan sameysanaynaa maasha Allah asxaabtayda qaaliga ah intaan hoosha guuda gelin waxyaalaha aad u baahan tihiin ayaan rabaa marka hore inaan iga dhaadhiciyo asxaabtayda qaaliga halka saad u aragtiin waxaan ku haystaa ranjigii aan ku dari lahaa keega waana guduud ama maroon halka waxaan ku haystaa 4 qaado iyo wax yar oo subag ah halka waxaan ku haystaa xabad baking powder ah saad u aragtiin waa 15 gram halka waxaan ku haystaa 4 xabo oo kun ah halka waxaan ku haystaa hal bakeeri oo sokor ah halka waxaan ku haystaa hal bakeeri oo bur ah waqti kastana waan ii sheegaa asxaabtayda qaaliga koobkan iyo kan ayaa yara weyn ayaan idhahaa markasta marka wuxuu noqonayaa kan iyo wax yar oo la socda ama kan iyo barkiisa ayuu noqonayaa kan marka iyoniga qaldamin intaas ayaan u baahanahay asxaabtayda qaaliga ah iyo labadaas sayto aan ku gelin doono ilaahay hadduu idmo wixii kaloo dusha ka saaranaynana markaan keega samaysana kadib ayaan iskugu imaanaynaa asxaabtayda marka ugu hore batarka ayaan ku ridayaa sokorta ayaan ku xijinayaa intaas ayaan isku qasayaa marka hore asxaabtayda ukunta ayaan ku xijinayaa asxaabta burka ayaan ku xijinayaa baking powderga asxaabtayda ranjiga ayaan ku xijinayaa asxaabtayda saad u aragteen 2 qaado yar oo ranji ayaan ku kalarka saan ka rabay muu noqonin marka waan ku kordhinayaa ما شاء الله أصحابتيدا كلر كواد أركين ساس أيام كربا أصحابتيدا خالقة ونوصل دمادي فورنا دا أيام قشانينا بقولي 8 إلا 40 دقيقة أو جينيسين إلى هاد إدمو isku soo noqosho labaad asxaabtayda asxaabtayda haddeertan waxaan sameysanaynaa alaabta aan dusha ka marsan lahayn keegeena halkaasaad u aragtiin 4 qaado oo qaadada cuntada oo subag ayaa igu jiraa halka waxaan ku haystaa soft cheese waxa weeyaan farmaajo oo jilacsan halkan waxaan ku haystaa icing sugar waxa weeyaan sokorta budadeeda ah hadda icing sugar ay heli karin waxa sameyn kartaa sokorta caadiga ah ayaad buda ka dhigi kartaa waana bakeeri weeyaan marka asxaabtayda hoosha ayaan guuda gelaynaa waxaan sameynaa icingkii ayaan ku shubayaa koobka ما شاء الله أصحابتيدا وإسكا هول فضد وح أدق معها هدي قفك وسميسانايو غوريغيس وكسميسانايو أيانا كم عام بدنت هاي وقت كستا أنا يرهدا كل واحد حسوستينا أمالي وحاني يرهدا وقت كستا
marka keegooyinka iyo cuntadii wax kasta aad gurigaada ku samaysanaysid ayaa ka macaan marka aad banaanka kasoo iibsanaysid, waayo banaanka ma garanaysid waxay ku darayaan soo maaha. soft cheese-kii ayaan ku darayaa asxaabtayda, waana 300 gram asxaabtayda. sidaas ayaan ka rabaa. maasha allah asxaabtayda qaaliga ah, keegeena ama doorshadeena saas quruxda badan ayuu noogu soo baxay. markiisana waad aragtiin guduud ayuu noqday, maasha allah tabaaraka allah. marka insha allah makuu noo qabooba ayaan insha allah isku imaaneynaa, kadibna wixii aan dusha ka saari lahayn ayaan ka saaraynaa, ilaahay hadduu idmo. asxaabtayda keega koowaad ayaan halka saaray, kadibna alaabihii aan isku qasnay ayaan wax yar ku shubaya dhexda. kan labaad ayaan saarayaa wax yar. hadduu kusoo haharo meesha ha iska daadinina, waayo sidaa intaa samaysiin ayaa saa dhehaysiin, kadibna korka ayaan uga sharaxaynaa. hadhow kan waan ka wareejin doonaa, mid kale ayaan u wareejin doonaa, laakiin hadda kan waan ku sharaxanayaa waayo wuu fudud yahay markii la warwareejinayo. markaa dusha wax ka marinaysid, markaa warwareejinaysid ayuu ka fudud yahay. markaa dabadeedna frinjeerkaan gelin doonaa, kadib ayaan ka wareejinayaa, mid kale ku wareejin doonaa. maasha allah asxaabtayda, saad u aragtiin keegii ku haray salka ayaan intaan isku burburiyey ayaan ku sharaxayaa. hadda saad u aragtiin geesaha ayaan bilaabay, geesaha ayaan ku sharaxayaa. kan ayaa dhexda dhiganayaa, saad aragteen kan ayaa dhexda dhigtay, kadibna weli waxaan ku daadinayaa keegii, waan ku sharaxayaa. ku yara sisima sifuu inagu degnaado uu niga dadaadanin. maasha allah kuulal yaroo gudguduud ayaan haystaa, aan korka uga shubi doonaa. kuulasha yar waa nacnacya yar oo sida kuulal camal ah weeyaan, ayaan dusha uga shubayaa, aan uga sharaxayaa. oo kuulal ma aha, waa nacnac oo kuulal ah loogu talagalay in keega lagu sharaxo. maasha allah asxaabtayda qaaliga ah, saad u aragtiin keegeena wuu noo soo dhammaaday, waan soo sharaxanay. sidaas quruxda badan ayuu kusoo baxay. sidaad u arkaysan asxaabtayda si yaroo fudud ayaan ku sameeyey, howl badan ma gelinin. asxaabtayda qaaliga ah, marka ugu hore waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin, wajazaakallahu khayr. inta channelkayga ku xiran, inta cusub nagu soo korodhay, waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan noogu soo dhawaada. channelkiina weeyaan, intiina kala horay aan ilaa bilowga aan isla soconin, waxaan leeyahay wajazaakallahu khayr. sida wanaagsan ay ila soo socoteen aad baad ugu mahadsantihiin.
marka asxaabtayda qaaliga ah keegan oo specialka ah weliba waxaan ugu talagalay gabar walaashayda ah oo youtuber ah oo si sharaf leh oo wanaagsan iisoo dhaweysay oo video iiga soo sameysay maasha allah waxaan ku leeyahay walaashayda Zahrakiin maskaxda dunida ayaa kusoo gashaa wajazaakallahu khayr abay macaani sida sharafta leh ay iisoo dhaweysay ay ii qadarisay waxaan ku leeyahay maasha allah madaxa ayaa ii saaran tahay gabar waxaa tahay qalbi furan sida wanaagsan aad videoga iga soo sameysay xabiibtay jazaakallahu khayr ayaan ku leeyahay maanta keegaas adiga ayaan kugu talagalay sharafay velvet keega aniga aad baan u jeclahay waa one of my favorite keega wayaan keegyaasha aan ugu jeclahay ayuu ku jiraa keegan ayto marka maanta adiga ayaan ku kasay inaan aan kugu soo talagalo maadaama aan jeclahayna waxaan dhahay Zahrakiin ugu magac dar waayo waxaa jeceshahay walaalka la jeclo soo maaha marka keegan maadaama aan jeclahay adiga aan kula jeclaaday xabiibtiyay raalina ka noqo inaan videoga la soo daaho waayo ana waxaan ahay hooyo ciyaal leh waad iska garanaysiin hooyaha ciyaal markay leedahay marka sidan aligeed ayaan kaaga soo daahay keegan xabiibti waxaan ku leeyahay howsha wadid waa howl aad u wanaagsan maasha allah oo dadkeena communitygeena wax u taraayo oo maxaa la dhihi jiray maskaxda qofka ugu furmayso waxaan ku yiraahdaa maasha allah hawshaada meesha ka sii wad inta ka badan insha allah ku rajeynayaa 100,000 inaad buuxisid ayaan insha allah ku rajeynayaa xabiibtiyay jazaakallahu khayr ayaan ku leeyahay walaalahayga qaaliga inkana waxaan leeyahay walaasheena insha allah hadiina inagu cusub tahay kulay Zahrakiin waa gabar youtuber weyn wayaan hadii inagu jirin subscribe inta u tagtiin hadda waxaan leeyahay kan guduudkana nash oo soo siiya insha allah jazaakallahu khayr asxaabtayda qaaliga dhammaan waan jeclahay sida ii jeceshiin si ka daran ayaan ii jeclahay